tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa maanta ay warbaahinta la hadleen ee Muqdisho uga tuuray maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedane kuwaas oo ku dhaleelay waxqabad la'aan iyo maamul xumo ragaadisay xarunta maamulka ee degmada Boorama sidoo kale waxay waxba kama jiraan ka soo qaadeen magaca loo bixiyay wadada isku xidha xaafadda Xaasle iyo qaybaha kale ee magaalada Boorama magacaasi oo ah magaca maayirka magaalada Boorama mashruucaasi lagu dhisay jidkaasi oo iska kaashadeen deeq-bixiyaasha caalamka dowladaha hoose iyo golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa waxay sheegeen aqooneed nimo darteed iyo jaahilnimo ilaahay u dhaliyay ay sababtay inuu sheegto wado GBLG u dhisay oo golaha deegaanka hordhana magaceeda lahaa oo yiri aniga igu magac daray intuu dhalinyaro soo ruriyay iyo afar wariyay oo saxaafadda ka tirsan uu yiri boonbooniya oo waxa la yiraahdaa wadadan magacayga u bixiya wajaahilnimada lagu yeeyo oo wax laga xushado weey annaguna isagaan ka xushoonana in la raaco kana magaaladii maayarka ma istaahilo maahay umana qalmo muqaarijna kuma aha ceeb bayna ku tahay annagina ceeb nagu tahay oo ummadii ceeb ku tahay in nin nool oo badow oo aan waxba qaban GBLG ga wada u dhisay oo daba cararayo oo dhax socdo wadadii anaga aan furnay weeyaan ilgaas aan ku qeelinay 6 blood xidhnayd 6 blood umada wadadii ka xidhnayd ee sidii la doono laga yeelay la fadhay ya weeyaan waxaan imika ku faanfaanaya ti aqli ma tani adduunyada waligeed ma dhicin baan ku ya waa imika waa madaxweyne ilaahda waxaan isku bixinayaa wada magaceed waa wali caadi weyn tani meel ka dhaca lagu sameeyo waxaan horta xaal marin siinaya magaaladaas xaafadda Sheekh Asmaan qaladka ka dhacay meesha waxaan kaloon qaladkaas oo waxa keenay in la yiraahdo gudoomiye Ramaax loo jiray in kaartii Ramaax wixii uu nagu sameeyay isaga ninkan loo xuray Gabilina waxa la yeeyay magaalada Gabil aad baad nasiib badantiin waad naga nasiib badantiin Gabili maadaama bil Ramaax aad iskaga fahanteen oo bil kaliya intaad ku fahanteen aad iska tuurteen de waxa soo kullu idin keli lahaa وان سلام يا صحافة مرات ما أنتوا حدونا إنك هذا أرين هم اللي يتو صحافة أن كده أولا ونين هم كان لو شجع قدوميها من جمده أو ما لو شجع ما يرمى هي وشجعنا يجي وضدي أنا وأنا كقيلنا اللي بلاد مكان حنا كل عقدي قيل ذي أحد بلده ما أنت إنه هذا أنا هلا يوم مقعبان أنا نسي أو ضد دم بينوش وحافظ عيال كي حافظها شخصا أنت شو لحتك أو كوب حيال عق ولا هذا مقعبها وارت مقعيال بحيا قف تاريخ كتكي عيال يوم مقعبا وحيل الدنيا لكن قف نورا إمكس شوكا زي ومستحيل وعيب وارت أنا ما أدبر وح ما هي دق مدى بورما ما أنت أيام درلا عيشتها إنك هستول فديو أي ولي إيجانيان aad barto waxay waxaan ka xaal marnaya reer Boorama dhamaantood maanta gudoomiyaha degmada lagu magacaabayo aad baan ugu xaal marnaya raali ahaan leeyahay waxa weey maanta dhibaatada jirta ninku wuxuu ku faanaya goolihiisa deegaan ku faanayo aniga wax la yiraahdo wax aniga la ma jirto shakhsi mal hadda isagu waxa xidhiban ka mid golaha oo farto taagneedii laakiin aniga wax la yiraahdo waa mustaxil xagnimada ku jirtay وحوي يوتا نكاسي وانين نجوسو توكتي وانين حق ربي نوكر باشيو حمانتي نجا نجوشت دقمهاني بورمهان أيارته هو كرباش كني وحكي العوين هاي ساعات مشلن وحي ما تسود دروس عنيا سألوا شو دونو يلي تسلوا شاي ليمو حكى ما بقى ربنا كم بقيو مركب واحد يارته دقمده أيام كره لك اللي يعني كاسي ما أنت قبصدي ولسي صعدي كفاني وضد أنا نقول ugu qaylatay dadka inuu wadadii waa loo lisay anagu hay'adda ku qaylin isagu ma haya istikale waxay raaligelin ka bixiyeen xildhibaanadaasi hadaladii uu dhawaan ku diray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal Cabdikariim Muuse Maal barsaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxayna sheegeen barsaabka ugu fiicnaa ee soo maray gobolka Awdal xildhibaanada oo arinta ka hadlayna waxay sheegeen qodobka labaad in iloobe wax weyn ما له يسوع قدوميها قبل كأن حسب قوانين عبد الكريم مال أيام قدوميها قبل
ku qaldamay barsaabka oo ku qaldamay waxaan leeyahay taasi wata gudoomiyaha gobolka waan ka raadi gelin harta gudoomiyaha raalahow annaga ka xaal marina raalaha boqolkiiba raalahow وسكريا عبد الشهر راح سكري سحنة تلفزيون كعالمية TTN TV مقالة بورما